السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة إيا مريكة هورسيد إيا موضوع قيمه سيقايه سوتا إركانو قبشوبيا دولكو قوسي لغوايي قدونتي هنقولة مركي قويا لغو داچو إرتوبا قيدنا الكأهبا تشيريا لما قراعاني برمجيدو دادكونا ليه هي لما قوهاتشاني قردريا نكان لغو اوغين قعن فضيتونا قباتو كوبيه سوا لغو قرقاراي guda baas mid laga keenayo garaaca mooyaane ma gilgilo duqeetida ninkii aw ka soo go'ay waa mar kale ee mawduuceenani waxa uu saabsan yahay waxa loo yaqaano brimageydada sida tixda horeba aynu ku soo ka arkaynay Allah u naxariistay xaji dalaayad waxa uu yiri brimageydu dadkuba leeyihiin lama go'aashaan 7 qof oo waliba markii dambe xeerka Soomaaliyeed qof 8aad ku soo daray lama taaban jirin inagoo mid u dul istaagi doona horta marka hore isku qaadno gebi ahaanba waa hogaamiye dhaqameed waa culimo waa maato ergo magan socoto iyo xidid waxa raaco oo 8 marka ku noqda xeerka Soomaaliyeed marka la eego ninka aan wax raga la dhalan ee madiga la yiraahdo bal aynu dib ugu noqono aynu mid u dul istaagno aynu ka bilownana hogaamiye dhaqameedka hogaamiye dhaqameedka oo inta badan magacyo badan yeesha oo loona yaqaan mar kale hogaamiye beeleed waxa uu ahaan jireen magacyadiisa loo yaqaan inta ugu badan ugaas suldaan garaad boqor islaan wabar malaaq iyo imaamba intaasi oo magac isagoo oo uu lahaan jiray ma aysan dhici jirin xeerka Soomaaliyeedna kuma ay jirin inay cidi taabato cidina gacan uma taagi jirin mana la dagaali jirin lamana guhaadin jiray kalabaadaynu soo qaadan doonaa wuxuu noqonayaa culimaa diinka oo intii ugu dambeeyay qarniyadii 14 qarni ee ugu dambeeyay ee diintu soo baxday ummadda islaamka ah booska ugu horeeya ee muhiimadda ugu weyn kaga jiray ummadda Soomaaliyeed xeer bay ka dhigatay ahaa inaan la taaban karin wala isku dili jiray xataa hadii la taabto waxana ay oran jirtay ummadda aqoonyahanka ummadda Soomaaliyeed wuxuu oran jiray lama dilo wadaadka diinta yaqaan gabyaaga aftahanka ah dhaqtarka daawo Soomaaliga yaqaana intaaba waxay kamid ahayd inaan la taabanin sida awadeed culimaa diinka laftoodu waxay lahaayeen inaan xeerkaasi inaan la taaban karin waana kii lahaa Caaqil Ulaax Faarax oo ahaa nin reer beledweyna isagoo markaas ka hadlaya waxyeelada loo geysto cawaaqibta ka dhalata culimada hadii culimo maalkeed la dhacay magan Ilaahay oo midig wax lagu goosto iyo muruqba loo sheegtay soo inay maraha soo akhriye laga malayn maayo soo muhudigii wax makalay masiibo inay ku dhici miin kale kuma taalo sidoo kale mar kale nin wadaada oo laga dhacay qaalin xoog lagaga qaaday ayaa isagoo marka tixyar ku tiraabaya wuxuu yiri waatan ku taataaban jiray sida tawaadeede oo tawaadu waa khadki macnaa talawaayihii baraay dhacay tuuranoo degay hatalalin taahana yaree tii Allah timide oo waxa ka muuqata inuu si u yara ku haan yahay gabaygu oo wax ka sugayo xagaale murti Soomaaliyeed ayaa waxay leedahay ummadda Soomaaliyeed waa in laga dhaxelaa waayeel taliya wadaad duceeya iyo wiil dirira taasoo ku muujinaysa wadaad duceeya marka lagu leeyahay saddexda ugu horeeya Soomaaliba ay u baahan jirtay oran jirtay waa in la helaa miisaanka kaga jiray hadaynu hore ugu sii soconno waxaynu soo saddexaynaynaa marka ku soo xigsiinaynaa waa maatadii maatada markaynu ka hadlayno waxyaabo badan aynu taaban doonaa waxaynu soo qaadan doonaa marka ugu horeysa tixuu leeyahay Sheekh Cali Cabdi Jibriil oo marka u dardaarmayay ciidan baxay waxa uu leeyahay culka duulayo maqal wadardaaran waayeel rag marka dagaashaan maatada hadooxina darxuma ka dhalato waa lagu duloobaa guryaha dadabta hoosiyo meelaha ay dhitadu taal dandansigu ma fiicne weligeen hadayinina
damac doqonnimo weeye dunjigeenna ceeb ku ah. sababtoo ah maatada la sheegay gebi ahaanba waa 4 oo keliya. waa haweenka, waa caruurta, waa ciroolaha, waa bukaanka iyo wixii lamid ee soo raaca markaa. macnaha dadka liita oo dadka dee awoodda leh ee dagaal wax iskaga caabin kara mooyaane wixii ka soo hara ayaa maatada inta badan lagu tiriyaa. sidaa aawadeed waxaa xeerka Soomaaliyeed ceeb baa ku ahaan jirtay in la taabto maato la laayo ama birimageydaba ha ahaatee. intaa markaynu ka nimaadno waxaynu soo raacin doonaa ergada. ergadu waxay noqon jirtay 3 midood. waxay ahaan jirtay ergo qabiil oo ahayd ergo qabiil ka socota, ama waxay ahaan jirtay ergo muslim oo ergo aan labada qabiil ee islaynaya midnaba aan ahayn, ee ergo kale oo qabiilo kale ka timi oo dhexdhexaadina u timi, iyo ergo ahaan jirtay ergo isku dhufanoo markaa labada qabiil ee dagaalamaya ka iman jirto oo dee si ay labada beelood u xasiliyaan oo dagaalka iyo colaadda u joojiyaan. labada beelood isagay kala iman jirtay. marka murtida Soomaaliyeed ee cabiraysa ergadu waxay tidhaahdaa ergo wixii la faro ayay geysaa, wixii la siiyana way cuntaa. markaa tix biyar baynu soo qaadan doonaa oo ergada ka hadlaysa. tixdaas waxay odhanaysaa: colaad oogan aadanuhu markuu aaladiisu qaato, umuldoox markuu dhacee iniba meel aado, gobonimada ehelkeedu kuwuu ka istixyoonaya in la urursho mooye kuwaan aano lagu sheegan, ab dhintay iyo ab nool kuwaan aafo loo geysan, asaayada adaanuhu kuwuu kala ajoonaya, ammaanada naftooda intii eebba naga reebay, amar dhacay ijaabiya halkan sama ku eegayay, ergada nimankii dilay ee nabadda aafeeyey, ehelnimo iyo kalgacal aaminiyo khayr leh, wale ama aabigiyo la eed sama oloolkayga, oo uu badan qodo ku dhace raggii aayar laga waayay, ama aafta laga guur arladiyo tan iyo iidoole. tixdaasi markaa waxay noo muujinaysaa ninba wuxuu ka tiriyey erge la laayay ayuu tixdaasi ka tiriyey, taasoo uu ku sheegayo dadka ergadaasi laayay wax ka dhalanaya. macnaha mamnuuc bay ummadda Soomaaliyeed dhaqankeeda ka ahaan jirtay iyo xeer Soomaaligaba. intaa markaynu ka nimaadno waxaa soo raacda socotada lafteedu iyana 3 bay u kala baxdaa. waa dad safar ah, waa qof ama kooxba ha noqdo ama badeece iiba iyo waxay doonaan hasitaan. waa dad sahan ah oo 2 degmo u kala socdaalaya, iyo dad baadigoob ah ama yaboohis ah oo xoolo iyo wax ka lumay raadinaya. 3daas iyagana lama dilo oo xeer ahaan Soomaalidu may dili jireen. marka waxaan soo qaadanaynaa tix yar oo tilmaamaysa socotada lafteeda wax ka tilmaamaysa. wuxuu yidhi: musaafirkii socotada makaankiisu dhoweyn iyo muslimkii la waco minankaaga yimaad, martiyaa la yidhaa midigtaa la qabtaa, waa la meel mariyaa, wixii ay mar damcaan marxabbaa la yidhaa. waxaan kaloo ku dari doonaa tix yaroo Sheekh Axmed Gebyo uu yidhi. wuxuu yidhi isagoo markaa ka tilmaamaya caqiibo xumada ka dhalataa qofkii dhacay ama wax u geystay dadka safarka. wuxuu yidhi: safar alle ninkii dhacay, nin saqiiro gowracay, sixirow kitaab gaab, 3daas inkaar qabe, samaan kuma dambeeyaan. waa guntii iyo gunaanadkii waxaa soo raaca intaasi waxa loo yaqaano xididka. xididku 4 mid buu kala baxaa. waa xigaalo oo tagooga wax loo yaqaana, waa xasabo oo faraca hoose ah, waa xididkii oo dadkii guurka lagu xididay ama inanaad ka qabtid ama inan haydin ka qabaan dadkaasi weeye, ama xabiibkii oo ah saaxiibkii dadkii aad wehelka ahaydeen akhyaartaadii ahaa. intaasiba iyaguna waa ka mamnuuc. dilka
sidaasi aawadeedna xeerka Soomaaliyeed baa lagu daray inaan la dili karin. ugu dambeynna waxa intaasi soo raaca wiilka la yiraahdo madiga laftiisu marka la dilo waxa ka dhashay in farac dhani uu istaago oo halkaasi wax dambe oo tarantii halkaasi ku istaagto. sida aawadeed xeerka Soomaaliyeed waxa la dhigay in wiilku markuu saa u qaangaaro markiiba loo guuriyo maadaama odayaasha Soomaaliyeed xataa ay jeclaayeen inay dumar badan guursadaan si ay ubad badan uga tagaan. xilli dagaal hadii la gelayo tulkiisu way ka reebaan dagaalka oo waa ka mamnuuc inuu dagaalka galaa. hadii dagaal lagu qabtana waa mamnuuc in la dilaa. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaas aynu kaga baxi doonaa mawduuca maanta.